وزير arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Ali Maxamed Waran Cade ayaa maanta ka soo degay doornimadii garoonka diyaaradaha Heathrow halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen safiirka Jamhuuriyadda Soomaaliland Ali Aadan Xawaale iyo gudoomiyaha TV-ga qaranka Cabdi Baaw iyo jaaliyadda Soomaaliland ee ku dhaqan UK wasiirka oo ka soo degay garoonka diyaaradaha maraan wax ka weydiinay socdaalkiisa waxa uu ku jawaabay asida aad baan idin salaamayaa runtii idinka iyo dadweynaha halkan ugu soo dhaweeyaba runtii iga soo tahay markii ugu horeysay in ay imaado ama la nimaado haddana runtii meelaan ka maqnaan maaha runtii waxaan u nimid hawlo inaga dhexeeya dowladda Ingiriiska iyo shirkadaba waxa uu tiin runtii waddankan Ingiriiska ay muddo dheer saaxiib ahayn Afrikada madow waa la gumaysan jiray laakiin anagu protectorate baan jiro leeynama gumaysan marka muddo dheer waxa inaga dhexeeyay xiriir dheer oo saaxiibtinimo iyo iskaashi ah kii baan halkii ka sii wadayna hadii la yiraahdo Soomaaliland waxaan gaarsiinayaa runtii waxaan ahay ummad u diyaar garoobay inay adduunyada ka mid noqoto adduunyada waxa lagu gaari karaa ama ka mid ahaanshaha adduunyada waxa lagu gaari karaa inagoo caalamka u muujinaa wadajirkeena inagoo caalamka u muujinaa nabadgelyadeena inagoo caalamka u muujinaa inay nahay ummad isku xiran oo dowlad leh oo is-ogol sidaa awgeed waxaan lahaa mararka qaarkood waxyaabaha meelaha ka soo googoola khaasaan intii imika soo socday dhexda waxaan maqlayay walooyin axsaabta oo cabanayay runtii waxa weeyaan arrimaha qaarkood annaga lafteedu ma jeclin inaan lagu tacadiyo xisbiyada qaranka laakiin waxaan had iyo jeer u wadnaa waxa weeyaan ilaalino nabadgelyada iyo xasiloonida dalkan oo runtii ay tahay arrinta keliya ama waxaan oran karo waxyaabaha ilaahay nagu manaystay waxa ugu qiimo badan waa nabadgelyada dadkeenu waa ogtihiin oo dad shaqooyin badan hayo maaha waa dad nabadgelyada iyo shaqooyinka ay abuurteen ku nool weeye marka mar walba waxaan idhaahdaa dadkaas inaan ka barakicin nabadgelyada ama aan dhibaato ku iman marka hadday waxyaabo yaroo cadaadisa ama ay arkaan ama ay u qaadan waayaan in la isu dulqaato wixii runtii yimaadana waxaan had iyo jeer ku xalinaa wadahadal iyo inaan wada hadallo oo aan xalino wixii dhib ay dhexdeeda wasiirka arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Ali Maxamed Waran Cade ayaa maanta ka soo degay doornimadii garoonka diyaaradaha Heathrow halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen safiirka Jamhuuriyadda Soomaaliland Ali Aadan Xawaale iyo gudoomiyaha TV-ga qaranka Cabdi Baaw iyo jaaliyadda Soomaaliland ee ku dhaqan UK Khadar Maxamed Aadan TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland